Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta markaasi xiiseysa Konami ama eFootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha sida officialka ah maalinta khamiista loo keeni doono, players ha noqoto ama managers, wax walbo marka maalinta khamiista la keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa. Muusow, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato, waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like sarto, channelkana aad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro. Intaas haddii aad ii samaysay maalinta khamiista maxaa la keeni doonaa? Maalinka khamiista ah waxaa la keeni doonaa ciyaaryahannadan oo halkan u jeedaan master full starskan oo u horeeyo Diaz, Luis Diaz, Coman. Saddexdan rag ayaa la keeni doonaa maalinka khamiista ah. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa new captains oo u horeeyo ninkan Jorginho ah iyo Romero ayaa u horeeyo. Raggan ayagana waa la keeni doonaa maalinka khamiista ah. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa magical bass oo u horeeyo Valverde. Raggan ayaa ayagana maalinka khamiista la keeni doonaa. Sidoo kale magical finisherkan ayaa la keeni doonaa maalinka khamiista oo u horeeyo Alexander Isak. Sidoo kale waxaa la bedeli doonaa match basska oo aad halkan ugu jeedaan ayaa la keeni doonaa. Match basskan oo ku jiro Lionel Messi, koonisyadana waxbaa laga bedeli doonaa, trade-nidii iyo wax walbana waxbaa laga bedeli doonaa. Waa la soo casriyeyn doonaa. Lionel Messi ayaa markaasi lasoo dhexgelin doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa managerskan halkan ugu jeedaan Jose Mourinho iyo tababarahan kale oo back ah ayaa la keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa backan oo Jordan Klopp ayaa la keeni doonaa asagoo markaasi 500 oo koonis lagu furanayo. Sidoo kale tababarahan kale ayaa asigana la keeni doonaa asagoo markaasi 500 oo koonis markaasi lagu furanayo. Sidoo kale shirkadda Konami waxay hore u keentay back Barcelona ah iyo back markaasi Manchester United ah. Haddana waxaa la filayaa inay keento back Bayern Munich ah. Sidoo kale waxaa la filayaa backan Arsenal iyo AS Milan way keentay. Haddana waxaa la filayaa backan Inter Milan inay markaasi keento ayaga iyo tababarahooda. Sidoo kale tababarayaashan qaar waa la keenay sida Arteta oo kale waa la keenay. Haddana waxaa la filayaa in tababarayaal kale oo markaasi lagu soo kordhiyo. Sidoo kale shirkadda Konami qaybta bontiska waxay ku soo kordhin doontaa ninka ciyaaro Tottenham oo CF ah oo markaasi 1000 bontis ilaa 5000 oo bontis markaas aad ku furan doonto. Sidoo kale shirkadda Konami qaybta bontiska waxay ku soo kordhin doontaa Diaz oo markaasi 5000 oo bontis lagu furan doono. Sidoo kale ninka la yiraahdo Kimmich ayaa qaybta bontiskana lagu soo dari doonaa oo markaasi aad ku furanaysid 5000 oo bontis. Sidoo kale shirkadda Konami ama eFootball waxay contract la gashay ciyaaryahannadan oo halkan ugu jeedaan Kaká, Xavi, ninka la yiraahdo Seedorf, adiga Bellingham, Buffon, Stoichkov, Iniesta, Militao, Suarez, Neymar, Nesta, Beckham, Luis Figo, Vieira, Totti, Carlos, Romario, ninka la yiraahdo Zanetti, Lambert. Raggan oo halkan ugu jeedaan markaasi shirkadda heshiis la gashay waa ciyaaryahanada cusub. Sidoo kale season 3 marka loo gudbo maalinka khamiista ah waxaa la keeni doonaa Leo Messi. Markii season 3 la galo ayaa la keeni doonaa. Shirkadda wallahi Messi way nagu badbadisay. Leo Messi ayaa markaasi la keeni doonaa season 3 marka loo gudbo. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Porteria Neuer ayaa asagana markaasi la keeni doonaa markii loo gudbo season 3. Sidoo kale markii season 3 loo gudbo waxaa la keeni doonaa Neymar ayaa la keeni doonaa markii season 3 loo gudbo. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Mbappe ayaa asagana la keeni doonaa markii loo gudbo season 3. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Ronaldinho markii season 3 loo gudbo ayaa asagana markaas la keeni doonaa. Sidoo kale qaybtan oo uu ku jiro David Beckham, Tony Adams, Mohamed Salah ay ku jiraan waa wax in laga bedelo oo ciyaaryahanno kale lagu soo daro ama intaanba la qaado kuwo kale oo cusub markaasi la soo geliyo ayaa la filayaa maalinka khamiista ah. Sidoo kale waxaa inoo dhiman campaignkan 850 milyan oo downloadska oo shirkadda markaasi ugu dabaaldegayso. Campaignkan waxyaalo cajiib ah ayaad markaasi ka faa'iidi doontaa. Firiyo badanna markaasi waa heli doontaa. Koonisna 210 koonis iyo ka badan ayaa markaasi ka faa'iidi doontaa. Campaignkan waxaa shirkadda ay markaasi shaacisay 11 January ilaa 1 Febraayo dhexdooda in markaasi ay keeni doonto. Khamiista ha noqoto, khamiista kale ha noqoto, bishaas iyo bishan 11 dhexdooda ayaa markaasi
markaasi la keeni doonaa 2025. Campaign-kan qaabab fara badan ayay markaasi u keeni kartaa. Sidoo kale waxay ku dabaaldegi kartaa Neymar oo big time ah ayay markaasi keeni kartaa oo 850 milyan markaasi iyadoo ugu dabaaldegayso ayaa la filayaa in markaasi ay keento. Intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. Please haddii aad markaasi channelka subscribe ku ahayn, subscribe dheh, muuqaalkana like garay, gambaleelkana furo si muuqaal walba aad markaasi soo dhigo uu kuu soo gaaro.